حفلة هي باشالة كل يوم أنا رسل صوت وأنا رسل عندهم تين كسر هذا كون أصحابته بيس الله waxaa joogaa Hamburg aan joogaa waxaan u soo baxay barnaamijyaasha sarana ila qaybsataan ila qaybsado meel baa joogtiin waxaan leeyahay inaad subscribe saartaan channelka like na siisaan commentina la qaybsataan insha Allah asxaabta aan wada jecel video waxa ugu faa'iideysanayaa asxaabta isaar subscribe-ka aad iyo aad u maasantiin meel baa joogtiin caafimaad ku noolaada insha Allah maanta waxaan la qaybsanayaa video qurux badan insha Allah kale doonta يو مان يو سبحان الله أصحابته ده سكر وكنا مرتاح سمرة عملت هيك باشال دونا حفلة دولي مفرنين لما فرنين كهذا يا نوجهو ونكوجو هرايو دولي هذا ثاني بلا مسار دقيقة يا كهر سام وقت بلا ملاك حفلة دي كنا أشدنا هاي أدي أن هاي جرماني جراهان هامبو على صويا Arbeiten seit 2 Jahren über 20 Frauen aus afrikanischen und arabischen Ländern bei uns und übersetzen und unter anderem seit Dezember auch Aya für Somali. Und heute im Rahmen von diesem Event ist auch möglich, dass Nahid eine Infoveranstaltung für Frauen anbietet und Aya wird übersetzen. Herzlich willkommen. Die Frauen können zu uns dann nach oben kommen. Da sind wir dann zusammen. dumarkuna way xagga sareetoola noogu iman karayaan markaas xaggaas waan ku sameynaynaa dumarkuna xagga sareetoola noogu iman karayaan markaa xaggaas waan ku sameynaynaa informationkii dumarka insha Allah. Pro Familie arbeitet grundsätzlich für Paare, für Frauen. Und das Thema ist das Thema Schwangerschaft und alle Frauen bekommen gute Unterstützung unter das Thema Geburt und genau Gelder, die man um die Geburten beantragt. It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Akali kala, you my sokor sokor. You know I'm the bokor. Kala kori sokor. Don't tijal ka sokor. Kung kunang kudelio. Kashki alap tum gelio. صوبحنا يركن عاشقي سلعته بيوع عيدان كراديا تابون عذار ميا ما عذعت صوبحنا يركن عاشقي سلعته بيوع عيدان كراديا عتامي عصرتها حتى أنا عدها راديات بند حرارية أني قون عدهاي كم نصو عتامي عصرتها حتى أنا عدها راديات بند حرارية دقال انت وضاعنا سعيد دقال عن وضاعنا عدي لو والله وعالفها مرقولة يركيان عالماضي انت نعيد دقال عن وضاعنا سعيد دقال انت وضاعنا وبرنا دي magaca ku bilaabaya sida waragta munaasabada maanta ee guusha jaalida Soomaaliyeed Hamburg oo rasmi noqotay dawladda Jarmalkana ay aqoonsatay. Assalaamu calaykum magacayga maxamed xaaji ku nool magaalada Hamburg kamid ah magaalada Hamburg ku nool waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan isugu imaanay anagoo ah jaalid Soomaaliyeed oo magaalada Hamburg u dabaaldegayna in jaalida loo aqoonsaday jaalid kamid ah jaalidaha ku nool dalka Jarmalka waa tilaabo hore loo qaaday waana ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow iyo kan fogba in ay noqoto tilaabo hore loo qaaday oo dad badan ay ku maxaan ku yiraahdaa ay ka geystaan dadaalkooda iyo wixii ay awoodaan inay ku biiraan dadka tan waxaan rajaynaynaa inay horumar buuxa u noqoto jiilka soo kacaya iyo inta hadda joogtay dadka imaanaya wadankada oo ay noqoto meel dadku ay ku soo hirtaan oo ay danahooda maxaan ku yiraahdaa ay ka dhax arkaan macnaha oo noqdo dad jira oo ku nool wadanka Jarmalka waatahay qaar ka tirsan Soomaalida midig taagan laba kamid ah dhalinyarada qayrta ay magaalada degan magacaaga adiga ku bilaaban kasida ku yaqaanaan dareenkaaga iyo guusha jaalida Soomaaliyeed ee gaartay sida aragtaa السلام عليكم عبر شيد ومحسن تهاي والله aad baan ugu faraxsanahay si fiican bay u dhacday soo aan garan oo qurux badan waa wax mar hore loo baahnaa laakiin hadii maanta aan gaarnayna waa ilaahay mahadiis waxaan rajaynaynaa insha Allah in inta tan ka sii weynaato kana sii fiicnaato maalmo badan inaan kulano baan jeclahay hadii ilaahay waxaan jeclahay ka rajaynaynaa jaaliyada in wax badan oo naga maqnaayo xuquuq iyo dhamaan iyo waxyaalaha tabeynay in aan noo soo dhiciso dhalinyartana aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka aad gasheen oo aad maanta heerkaas ay ku soo gaarsiiseen waad mahadsantiin ali Allah soo dhaweynaa Soomaalidan nahay isku maasha Soomaalidan waa muhiim magarad waana wax hore loo baahnaa laakiin insha Allah hadana soo dhaweynaa markaas watahay muuqaalkan oo quruxda badan waxa ka daawadan kartaan barta YouTube-ka Beg AK iyo Beshka waxa ka dhacday magaalada Hamburg waxaanu doonaynaa hadal aan isla wada ognahay halka ka nidhaano oo ah
Soomaaliyey toosoo isku tiirsaday adbakiina taagdarane taageera weligiige dareenkaagu waa sidee والله ما أنت دريم كله وعاد وفرحة بنية هاي مال ما كانوا يقدوا هاي ويو ما أنت وحن لكل ما اليردي صوماليات فاميلية دي إضياشي كواس ما أنت نقول كل مسمى داشن قروحنا بدن وأنا قلت بالدين إنه ما أنت كواد تشاريد إنه عجها اللغة تاجي مقالة هامبروك ضمان بالصومالية إنه واحد هامبروك ما أنت هذا سكواد عرقتي أنا مدرس أركين وحنوت فرحة أدوين يقول وحنو أركا وش كواد اليرد سكوح القانتي إنه يدي بدأ وتاجت تشاريدا واللحبي وتكهر سكوح القانتي إنه مرؤون Soomaalida ku dhexesha jaariyad aan leeyahay guulba noo soo heyseen kuwaas oo wali aan kula dardaarmayo ka gees magaalada inay fiiriyaan dadka Soomaaliyeed tira koobaan ogaadaan qofka dhibaataysan qofkii xanuunsan meeshii aan raaci lahayn khaasatan aniga waxay tahay farxad gaar ah waayo waxa aan maanta helay meel qofka Soomaaliga maanta ka dhibaataysan meel qofkii ii raadin lahaa meesha aan doonayno aan oo keen lahaa ama ka jeel naga jira ama ka isbitaal naga jira ama midka xanuunsan ama midka naga lunsanba kuwii noo heli lahaa maanta xawee jaariyadan waxaan rajaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan wada midowna sidii aan u hayn waa tahay jaalida Soomaaliyeed Hamburg maanta ay u dabaaldegaysaa munaasabada guusha ay ka gaareen inay noqoto jaalid rasmi ah oo wax la qaybsata ummadaha martida ku ah wadankan isla Soomaalida ayaan siirin doona mikrofoonka waxaan eegi doonaa dareenkooda iyo waliba sida wararta guusha jaalida Soomaaliyeed ay gaartay والله magacayga Umar Almigeeti waxaan u arkaa jaaliyada inay guul gaartay dhalinyarta soo baxayso inay wax u tari doonto iyo kuwa hadda jooga adigana sidee والله ما شاء الله arrin farxad leh runaantii horumar leh iyo macnaha oo bogaadin leh runta aad iyo aad hambalyan leh أتا هنبلي عبد القادر وحكم هذا اللي مجال سيدنا تاجوش جارد الصومالي ذيقات ما شاء الله مركور هنبلي اللي هي هذا وفرح سمها هاي وأرين مدبرنا عن سويني وحلينا هاي محاكرة إن الجوشة سان سيانا نقص هرا هوسي سعنا ها مركور حليها وأرين لسه هو تي وقول وينا وقتها أنا من درين كاجي سيد ورقته كلنا كمان الصومالي السوي ما بين هامبوك والله درين كياد بوفعي أيوة سودو وينا جاليد وحاول يقول ويلوسه هو تدمان أمد الصوماليات كنول waxaan rajaynayaa in hore loo socdo oo jaaliyadu ka faa'iideysan doonto oo dadka magaalada jooga oo dhan ay ku faa'iideysan doonaan aad baan ugu faraxsan magacaagu saddexan kulanka maanta sida aragto Cabdil Axmed Cabdi Cabdil Garweyne kulanka maanta top oo ahay 100% waana ku faraxsanahay intaanu Soomaalina maanta isugu imaato magaalada Hamburg jaalina ku yeelan oo markii ugu horeysay tira inta la Soomaalida Hamburg ku dhaqan ay sii maadaan dhalinyaro labiyo didigle bal inay maadaan oo la saarku sida aragtaa horta wallahi hal mid oo arkaani jirmal ma aragtay dhalinyarta saaxiib wada xariisiin waxay tagaan calafdoon iyo meel raadiyaan laakiin maanta inta la soo keenay is arkaan oo mid saaxiib sida aragto guusha maanta Soomaaliya inta la isku timaado dabaaldegaysa guusha jaaliyada بسم الله الرحمن الرحيم horta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Soomaali intaan leeg ay iskugu imaato jaaliyad Soomaaliyeed ee ka dhisan wadanka Jarmalka gaar ahaan Hamburg aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay Soomaalida ku dhaqan gobolkan Hamburg iyo nawaaxigiisa inta ku noolba aan leeyahay geesaha laga istaago jaaliyada Soomaaliyeed waa waxna anfacayo waxay ka shaqeynaysaa isku duubnaashada iyo isku soo dhawaashada ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.